munaasabadani oo ay ka soo qayb galeen wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed culimo u diin iyo qabaha kale ee bulshada waxa looga hadlayay muhiimadda ay leedahay habeenkii la dheelmiyay nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo ahaa al-Israa' wal Mi'raaj oo habeenkii aynu soo dhaafnay ku beegneed qaar kamid ah culimada ka qayb gashay habeenkan iyo faa'iidada uu leeyahay dhammaan muslimiinta waxayna kula dardaarmeen bulshada muslimiinta inay mar waliba ay la socdaan maalmaha ka duwan maalmahan oo kale ilaahay dheelminta sameeyay raaya al-Israa' wal Mi'raaj Israa' may buuha nabi sallallahu alayhi wasallam makii ilaahay ku dheelmi ila bayt al-Maqdis rihladan oo marna dhinaca haytay oo foqiga haytay may la ray rihlatul Israa' laakini Abdullah ibn Abbas iyo ragi caalimiin tahaayeen weerena nabaga waldeemi بروحه وجسده يقظة يلك ديلمي وسوي جيد يلي ديلمي إلى أرض هذا لجيو حضرة الرب سبحانه وتعالى لجيو مركز إلهي ولي أن وحيودي فدي يحن وحيودي وزيرك وزارة دينتي iyo waqaafta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Sheekh Cabdullaahi Bardheere ayaa sheegay in ay mudan tahay in laga faa'iideysto maalmaha khayrka oo ku jira waxaana uu u baaqay dhammaan muslimiinta inay ka faa'iideystaan ayna xusaan maalmaha taariikhda leh la nooleeyo kor loo qaado maxaa la yiraahdaa dadka la xasuusiyo qaflada ay ku jiraan laga soo baxsho la yiraahdo maalmaha iyo waqtiyada iyo bilaha kala duwan war maalintaas ay ku beegan tahay maanta xalmaladan ay ku beegan tahay sababtoo dadka waxa lagu wareeriyay wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu san xujo u soo dejinin khayr adduunyo khayr aakhir midna laga faa'iideynin bilaahi wax daran lagu sameeynaayo laakiin khayrka shaydaan jidku fadhiyo asagii Ilaahay subhanahu wa ta'ala markay uu Ilaahay ku caasinay ballantii uu qaaday waxay ahayd wala tajidu أكثرهم شاكرين محمد الخير جيتو طلقة تي في بيدبو